soo dhawaada asxaabay walaalkiina barqaba maanta inii wada sheeko kale oo aad u xanuun badan ka horse sheekadan intaana bilaabin nagoobi inaad muuqaalkan like-tar janaalka haddaad ku cusubtaana subscribe-ta naga hilmaamin let's go bilowga sheekadeenna waxay ku bilaabanaysaa Obinna wuxuu iska fadhiyey sariirtiisa yarta xilligaasna wuxuu gacanta ku hayay riboodkii dhakhtarka uu soo siiyey jirkiisii awoodda badnaydna wuxuu isku bedelay daciif bilooyin badan oo xanuun la taahayay Obinna wuxuu ku noolay magaalo yar taasoo ku tilay Ballantyre State dalka Nigeria Obinna wuxuu ahay nin howlkar aadna u shaqeeya laakiin wax walba waxay isbedeleen maalintii dhakhtarka uu isaga soo siiyay warqadaasna wax kale kuma qornayn riboodkiisa waxa loogu sheegay inuu u baahan yahay kili waliba kiliyaas waxa loo sheegay haddii aanan la helinna in 6 bilood kadib uu geeriyoonayo Obinna aad buu isaga murugooda wuxuuna isweydiinayay meesha uu ka heli doono qof isaga kili ugu deeqa tan kaloo sii taaganna waxay ahayd qalliinka xitaa hadduu kilida helo qofka lacagta qalliinka ka bixinaya bal wax yar aan kaga sheekayno Obinna waxa uu ka shaqeyn jiray madraso sidaas oo kale lacagta yarta uu ka soo helana xaaskiisa iyo labadiisa wiil ayuu ku qoodi jiray inkastoo xaaskiisa arrinkaas aad uga murugaysaneed maalmaha kamid ah Obinna wuxuu go'aansaday mobilkiisa inuu qabsado soo bal walaalkiisu waxa kaasoo ku noolay magaalada Lagos ee dalka Nigeria waliba isagoo xilligaas ka rajaynaya walaalkiisa inuu isaga wax u qaban doono si kastaba aatee walaalkiis mobilkiisa markuu sidaas u wacana walaalkiis ayaa isla markiiba ka qabtay Obinna ayaana bilaabay walaalkiis wax walba inuu sharxo wuxuuna u sheegay in dhakhtarku uu sheegay inuu u baahan yahay kili waxaana sidaas oo kale loo sheegay kilidaasi hadduusan helinna in 6 bilood kadib uu geeriyo doono wuxuuna u sheegay walaalkiis inuu isaga wax lacag ahayn walaalkiis markuu intaasi maqlay hadalka ayaa ku dhigay walaalkiis aad buu uga naxay sababta uga naxana wax kale ma ahayne waxay ahayd in Obinna uu yahay walaalka kaliya oo isaga haysto kadibna wuxuu yiri walaalkayo hawlwalin waxa hadda sameeysaa adiga waa inaad dhimaataa magaalada Lagos wax walba aniga ayaa damaanad qaadaya diyaarad ayaana ku bangaraynaya waa inaad magaalada Lagos timaataa isbitaalka u wareegsan ayaana ku geenaya Obinna markuu intaasi maqlay aad buu ugu farxay walaalkiis ayuuna aad ugu mahadceliyay markaana waxa uu dareemay rajo yar si kastaba aatee suuxigana dharkiisa yarka ayuu xirxirtay kadibna laboorka ayuu iska xaadiriyay ugu dambeyntiina diyaaradiisa ayaa waxay u dooshay dhankaas Lagos goortaas laboorka si ay u soo gaarana walaalkiis ayaa meesha ugu yimid walaalkiis kaasoo lagu magacaabay Jidi xilligaas aad buu uga murugaysanaa walaalkiisa isla markiina daf ayuu la yiri baabuurka ayuuna hore uga tuuray isagoo u sheegay inuu caafimaadi doono xilligaas Jidi waxa uu ka walwalsanay walaalkiisa kaliya inuu halkan uga geeriyoodo sababta uga cabsanayna waxay tahay wuxuu ahaa halka walaal oo kaliya isaga oo haysta isla markiina baabuurka ayuu daf yiri isbitaalka u wanaagsan ee magaalada Lagos ayuuna hore uga tuuray dhakhtarka ayaana isla markiiba baaritaan ku sameeyay wax yar kadibna natiijada ayaa soo baxday waxaana loo sheegay in ninkani kaliyihiisa dhanba aysan shaqaynaynin sidaa darteedna loo baahan yahay qof isaga kali ugu deeqa sidaas oo kale dhakhtarka ayaa u sheegay ninkan xaaladiisa inay halis tahay lagana yaabo inuu u geeriyoodo marka waxaa loo baahan yahay qof isaga kali ugu deeqa si uu isaga u badbaado Obinna markuu intaas maqlay aad buu isaga murugooday rajalaan ayuuna dareemay laakiin walaalkiisa Jidi ayaa isla markiiba waxa uu yiri dhakhtarka waran haddii aniga walaalkayga aan ugu deeqo sababta uu sidaas u dhahayna waxay tahay wuxuu ka cabsanaya walaalkiisa inuu waayo kadibna waxa arrinkii maqlay Obinna wuxuuna yiri walaalkayo si camal maxaad arrinkaas u samaynaysaa laakiin Jidi ayaa wuxuu yiri maya walaalkayo ma doonayo adiga inaan ku waayo sababta waxa taa halka walaalo kaliya aan haysto si kastaba aatee Jidi walaalkiisa ayuu ku qanciyay dhakhtarkiina wuxuu bilaabay operationka inuu fuliyo ugu dambeyntiina waa uu ku guuleystay sidaas oo kale Jidi wuxuu bixiyay xitaa qarashkii lagu sameeyay qalliinka walaalkiis markii kaliya la siiyana waa uu soo fiicnaaday kadibna xaafadiisa ayuu keenay laakiin markuu asbuuc joogay sidaas oo kale waxa uu sameeyay in Obinna xaaskiisa waliba labadiisa wiil inuu gurigiisa ku casuumo si halkan ugu joogan intuu ninkan uu ka sii caafimaadayo laakiin arrin kale oo la filinaya ayaa dhacay biloon yar markay ka soo wareegatay walina Obinna gurigaani sii joogo xaaska Obinna oo qaba ayaa isla markiiba gurigaani ka heshay waliba noloshaan quruxda badan waxayna tiri maya macquul maahan lagama yaabo noloshaan quruxda badan inaan ka tagno waa inaan halkaani joognaa laakiin waxay tiri maxaan sameeyaa waxayna go'aan ku gaartay in arrinkan ay kala hadashay ninkeeda waxay diidana dib inay ugu laabato magaaladii yarta ahayd habeenada kamid ayayna ninkeeda u timid kadibna dhinaciisa ayay soo fadhiisatay xilligaasna way dowlacdeynaysa waxayna ku tiri Obinna dhinacyada fiiri moogtaa walaalka hantida uu sameeyay waa hanti ay nabacaadiyeen si adag ayuuna u shaqeeyay marka sidee ayaad u aragtaa haddii halkaan iska joogno ilaa adigana aad ka shaqaysanaysaa hanti noocan ka yeelanaysid Obinna ayaana wuxuu yiri maya macquul maahan walaalkii waad ogtahay naftiisa ayuu u huray sidaas oo kale kaliisa ayuu ugu deeqa marka ma doonayo inaan xoog sii saaro oo intaan hay ugu filnaato
laakiin tay u soo dhawaatay iyo wixii ku tiri dhegayso waad ogtahay walaalka wax walba ayaa ku dhici kara lacalla xitaa hadduu dhintay ma ogtahay hantidiisa in adiga la wareegaysid maadaama xaaskiisa Ingoos iyo weliba gabadhiisa Nada ay aad ugu adagtahay inay noloshaani ay maamulaan marka ninkii waan ku baryay arrinkaasi ka fakar Obinna arrinkaas iyada waa uu ka diiday Amarana marna ma aysan jabin habeen walbana isaga ayuu ma jirtay barnaamijkaasi inooga dhaadhici jirtay sidaas oo kale waxay uga sheekay jirtay arrinka labadooda wiil maadaama ilmaheeda haddii meeshaan ay ka tagaan magaalada ay dib ugu laabtaanna meeshaasi ay daryeelaan ay ku dareemi doonaan Amara marar badan ay isku dayday ugu dambeyntii ninkii way ku qancisay wayna ku guulaysatay laakiin Amara waxay leedahay qorshe weyn qorshahaasna gadaal ayaan ka ogaa doonaa muddo bilooyin ayay guriga sidaas ugu sii sugnaadeen Ingoos oo xaaska jid ayaana si wanaagsan gurigan ugu soo dhaweeday wax walba ay u baahan yihiin ayada ayaa ka caawi jirta oo waxay qof aad u naxariis badan dhanka kale ninkan jid wuxuu ahaa nin inta badan u baxa arrimaha ganacsiga maalin maalmaha kamid ah waliba xilli subaxeed ayuu wuxuu go'aansaday inuu u baxo arrimo ganacsi waliba magaalo aad uga fogan magaalada Lagos safar dhulka ayuuna go'aansaday inuu ku baxo xilligaasna wuxuu hore u sii kaxaystay qaar kamid ah dadkii ka shaqeynayay shirkadiisa ka horse intuusan bixin halkaas wuxuu ku macsalamay gabadhiisa Daan iyo weliba xaaskiisa nasiib darasa goortii uu magaaladaas ka baxay safarkana wadada uu ku socday ayaa baabuurkoodii shil galay weliba waxa ay shil ku galeen baabuur kale oo booyada oo shidaal waday sidaa darteedna wixii meesha dadka saarnaa meesha ayay ku wada gubteen kooxdii dumayska markay xilliga meeshaasi maatana waxay isku dayay inay bal dadkii badbaadiyaan nasiib darasa meesha wax ay ka waayeen oo dadkii idil meesha ayay ku gubteen sidaa darteedna waxay xaqiiqsadeen inuu qofna uusan ka badbaadin warkii ayaan isla markii waxa uu gaaray Ingoos iyo weliba Daana taasoo aabahooda u ahay dadkii safarka ku dhex jiray iyagana aad bay isaga murugoodeen weliba geerida aabahooda ku timid sidaas oo kale dadka asxaabta iyo weliba qaraabada ayaa guriga soo buux dhaafiyay iyagoo halkaas Ingoos iyo weliba Daana ugu tacsiyeeyay Obinna iyo weliba xaaskiisana meesha ayay joogeen laakiin daha gadaashiisa aad bay uga faraxsanaayeen weliba Amara ayaa ninkeeda u timid waxayna ku tiri muujida ninkaygu ducadeena Ilaahay hadda u aqbalay halkan aniga ayaa hadda gacanta ku dhigaynaa sidaas oo kale labadiisa wiil arrinkan aad bay u faraxsanayeen waxayna dhaheen shilkan inuu galo fursad dahabi ayay noo aheeda maalinka xigana aas ayay u sameeyeen inkastoo qofka aaska loo sameynayay wejigiisa aqoonsan maadaama aad u gubtay iyagana waxay go'aansan inay iska aasaan Obinna iyo xaaskiisa ayaana xilligaasi joogay laakiin arrinkan la ogeyn waxay tahay in ninkii jid yahay isaga baabuurka uu dhinac uga faniinay markii uu dabka meesha ka kacayay kadibna qof wadada maraya ayaa xilliga meeshaasi ku arkay isagoo isla markiina dhankaas isbitaalka ula cararay dhaqaatiirtii oo la tacaaleen ugu dambeyntii waxay ku guulaysteen inay daaweeyaan nasiib darasa ninkan marka uu soo kacay waxaaba la ogaaday inuu xasuustiisii oo dulmiyay kadibna kalkaaliyaasha ayaa magaca waxay u bixiyeen Musa bal wax yar halkan aan ka hakanaan dib ugu laabana Obinna iyo weliba labadiisa wiil waxay la wareegeen shirkadii Jidi iyagana ayaa bilaabay ganacsiga inay sidaas ay ku sii wadaan kadibna waxay iska dhigaan beenayeen qoyska dadkii maamulayay habeenada kamid ayuuna Obinna waxa u yimid Ingoos iyo weliba gabadheeda wuxuuna ku yiri gurigan weyn kuma noolaa kartiin marka waxaan idinka rabaa inaad degtiin qolka yarka store-ka halkaasna aad ku noolaatiin hortaysa hadalkaas Ingoos maqasho way aamin weysay kadibna waxa ay tiri maxaad ka hadlaysaa sidee ay guri aniga aan leeyahay uga baxaya maadaama ninkii Jida uu ii dhisay kadibna Amara ayaa soo orday waxayna dhinaceeda soo aaday ku tiri hadda ninkaadii waa uu geeriyooday gurigaan anaka hadda ayaa madax ka marka waa inaad amanada raacdaa Daana oo meesha fadhiisa ayaa tiri hooyadiisa sulmaadi kartiin lagama yaabo gurigaan inaan ka baxo sababtoo aabaheen ayaa noo dhisay Amara ayaana ku qasbay kadibna waxay tiri dhegayso hadda aabaha ma noolo waa uu dhintay sidaa darteedna gurigan waxaa maamulaya Obinna marka adiga meeshaan waxa kama tiida Daana ayaana bilowday inay idii la muranto kadibna labada wiil ayay u wacday Amara waxayna ku tiri kaala gabadhan qabta iyagana soo qabtaan gabadhii ay isla markiiba kala taagan iyadana waxay bilowday meesha inay ku garaacdo sidaas oo kale labadii wiil waxay bilaabeen inay gabadha iyada ay garaacaan waxayna ku dhahan hadda labadiina xalka kaliya ayni hayna waa inaad gurigan ka baxdiin maadaama aad diideen qolka yarka inaad ku noolaataan labada boorso yarka ayayna banaanka ugu soo tuureen waxaan dheen haddii albaabkan aynu ku aragno naftiina ayaan baabiinaynaa iyagana way iska soo baxeen kadib iyagoo aad u murugaysan ayay guri banaanka ka raadsadeen weliba guri yar ayay iska degeen inkastoo xilligaasi lacag fiican aysan haysan Obinna iyo weliba xaaskiisa ayaa Amara iyo weliba labada wiilna hortii meeshii ay ka saareen Ingoos iyo weliba Daana dawaaldeg ayay samaysteen halkaas ayayna ku dawaaldegeen wixii intaasi ka dambeeyana waxay ku soo noolaadeen nolosha saadka quruxda badan Obinna ayaana wax walba maamulayay labadiis wiilna garabkiisa ayay ahaayeen
dhan kale noo soo celi Muuse ama Jidi inkastoo dhaqaatiirtii xanuunkiisa ay la tacaaleen ugu dambeyntii waxay ku guuleystay inay daaweeyaan laakiin ibtiladu waxay tahay ninkan inuusan wax dhan xasuusanin xasuustiisina uu sidaas ku lumiyey dhaqaatiirtuna waxay isku dayeen wax walba oo ay ninkan xasuustiisa dib ugu soo celi karaan maadaama shil weyn uu soo galay xitaa alaabtiisa markii baaritaan lagu sameeyay meeshaasi lagama helin wax kaarkiisa ama wax isaga lagu tixraaco dhaqaatiirta ayaana xilligaas filayay wax qaraabadiisa ama familigiisa inay isbitaal ku soo booqan doonaan laakiin maalmuhu siyaasi ay ku socdeen asbuucyada ayayna isku dhiibayeen isagana ma jiran qof xitaa xilligaas isbitaal ku soo booqda isagana markuu ogaado meesha inuu qof ay ku soo booqanayn kadibna dhakhtarka ayuu maalin u tegay wuxuuna ku yidhi dhakhtar dhegaysa aniga wax biil halkaan isagama bixi karo marka sida ayaad u aragtaa haddii isbitaalkaadaan ka shaqeeyo maadaama aniga wax shaqa aanan haysan kadibna dhakhtarka ayaa wuxuu yidhi dhanka beeraha ayaan ku dibaya waana waraabinaysaa sidaasoo kalena geedaha ayaa ka jarjaraysaa isagana arrinkaas aad buu ugu farxay kadibna maalmihii wuxuu bilaabay inuu halkaasi ka shaqeeyo inkastoo isaga hal haba xasuusanaynin dhan kale noo soceli gabadha yareed ee daana way iska fikirtaa abeed ayaynu xiistay si kastaba haata waxay go'aansatay shaqooyin ablay garaysa laakiin shahaadooyinkeed ma haysato sababtoo shahaadooyinkii guriga ayay uga soo tagtay kadibna waxay go'aansatay guriga si qarsooda inay ku timaado kadibna kor ayay kasoo booday guriga ayayna gudaha usoo gashay xilligaasna waxay ka cabsanaysa in ayada la arko qolka ayayna isla markii gashay kadibna waxay bilowday qaanadii inay dukumentiga kasoo baxsato xilligaasi baaritaanka ku jirta warqadahana meeshay kala soo baxayd ayaa labadii wiil arkeen kadibna waxay dhaheen kaala walaalay meesha maxaa kasoo doontay iyadana waxay u sheegtay meeshan kaliya inay u timisay u hesho shahaadooyinkeeda shaqa ayayna doonaysa in ablay garayso iyagana waxay dhaheen sidaas ayaa ku wanaagsan gurigaana waa inaad si straight uga baxdaa haddii kale waxay kugu dhaca adiga ee dusha saaranaysid iyadana ma aysan diidin isla markii way ka aqbasho guriga ayaan orda uga soo baxday waxayna u sheegtay waxaan ay ku sameeyeen inay qamamay doonaan iyagana waxay dhaheen qamayntaad maqaana bax guriga ka bax weliba aad bay ugu qaliyeen iyadii ordaysa ayaan albaab ka soo boday kadibna waddadii ayay ord ku soo gashay xilligaasi ma aysan ogeen waddada inay baabuur badan marayaan sababtay ugu caneedna waxay ahayd gabadhan inay aad u cabsanaysa wiilashan ay bursanayeen laakiin intii waddada ku dhex jirta ayaa baabuur jogsiiyey kadibna darawalkii gabadha ku dhuftay ayaa isla markiiba baabuur ka soo boday gabadha ayuuna dhinaceedu u soo cararay ninkanna wuxuu ahay nin lagu magacaabo David oo weliba ganacsada gabadhii markuu arkana aad buu uga naxay wuxuuna ku yidhi ma fiican tahay wuxuuna ogaaday inay xaaladeeda wacna isla markiina isbitaalka ayay ula cararay goorta hoose isbitaalka sidaas u keenay ayaa dhaqaatiirtii ugu dambeyntii waxay ku guulaysteen gabadha inay daaweeyaan kadibna goortii ay daaweeyeen ayaa waxaa loo sheegay inuu la kulmi karo isagana gabadhii ayuu u yimid kadibna waxa uu weydiiyey sidii xaaladeedu tahay weliba familigeeda meeshay joogaan iyadana waxay bilowday wax walba inay u sharaxday weliba adeerkeed wixii ay ku sameeyeen Davis goorta uu sheekaasi maqla aad buu uga naxay wuxuuna yidhi dadkaas waa dad xaasidiin isaga ayaana u sheegay mar walba garabkeed inuu taagan yahay iyadana maalinka isbitaalka ayay ku sugnaatay kadibna dhinaca dambe ee beerta ayay soo aaday laakiin maalinkaasi waxay dhinaca dambe ay ku aragtay nin aabaheed u ag goortaysa gabadhii aragtay way aamini weysay sababtoo ninkan aabaheed oo meesha taagan ayuuba ahaaba meeshii ayayna gabadhii ku miir daboolan isla markiina dhaqaatiirta ayaa ka soo gaaray waxyar kadibna gabadhii waa ay soo kacday kadibna waxay bilaabatay inay xasuusto wixii ay meesha dambe ay ku soo aragtay weliba dhinacaas dambe ee beerta iyo weliba ninkaasi aabaheed sida uu ekay laakiin waxay tiri say macquul ku tahay aabaha waa u dhintay iyadoo xilligaas walwalsan ayaana qolkii waxa u soo galay ninkii David ahay kadibna dhinaceeda ayuu soo fadhiistay waxa uuna bilaabay iyada inuu qalbiga u dejiyo isagoo xilligaas u sheegay inay wax walba dhibaatada ay ugu wacan tahay dhibaatooyinka ay soo martay kadibna dhakhtarka ayaa waxa uu yidhi waa kaxaysan kartiin gabadha haddana meesha waa ka saara kartiin laakiin goortii uu sidaasi meeshii uga soo kaxay ayay mar kale waxay jaleecday dhankaas iyo beertii kadibna odaygii ayay arag odayga ayaa sidaasoo kale waxuu bilaabay inuu wax xasuusto kadibna gabadhi ayuu u soo dhowaaday waxa uuna yidhi Adana goortoosa sidaas Adana ay maqashay isla markiiba meeshii ayayba gabadhii mar kale ku miir daboolantay kadibna isbitaalka ayaa loola cararay sidaasoo kale jidhi kala duwan saarin ee uu ka soo daba cararay dhaqaatiirtii ayaana gabadhii la tacaaleen saacado yar kadibna gabadhii waa ay soo toostay aabaheed ayaana dhinaceeda soo fadhiistay aabahana xilligaasi wax walba ayuu xasuustay iyo weliba isaga shil inuu galay kadibna Adana ayuu u soo dhawaaday wuxuuna ku yidhi gabadhaydiyey aniga aabaha ayaan ahay markuun ku baryaa ooyin Adanana wax walba ayay dib u xasuustay weliba odaygii kadibna waxay bilowday inay aad isaga oyso aabihi ayaana gabadhii u soo dhawaaday wuxuuna yidhi gabadhaydii isdeji wax walba way wanaagsanaanayaan iyadana waxay bilowday sheekadeeda inay uga sheekayso weliba adeer iyo eedda waxay ku sameeyeen weliba labada ilmood oo kale iyaga ay dhaleen odayga markuu intaasi maqlan aad buu isaga ooyey David sidaasoo kale meeshii ayuu joogay waa uuna la yaabanaa meeshan wax ka socda ugu dambeynna wuxuu ogaaday gabadha inay aabaheed dib ula midowday maalinkii xiga markii la gaarana Jedi iyo weliba xaaskiisa iyo gabadhiisa ayaa ugu dambeyntii waxay dib ugu soo laabteen dhankaasi gurigii ka horse guriga intaysa gelin go'aan waxay ku gaareen inay maraan dhankaasi saldhigga maadaama ninkan ay walaalkiisa Obina wax walba ka xaday booliska ayuuna arrinkii la wadaaga weliba caddeyn ayuuna ka diyaariyey kadibna guriga ayuu isla habeennimadii sidaas ugu soo laabtay weliba xilligaas ciidamo ayaa la socday guriga ayuuna gudaha u soo galay xilligaasna Obina iyo weliba xaaskiisa amaaraya labadiisa wiilna meesha ayay ku soo dabaaldegayeen goorta hoose Jedi sidaas qolka u soo galay ayaa Obina isla markii waa u naxay
kadibna waxa uu yidhi si camal jiiriyo weli ma nooshahay kadibna odayga ayaa waxa uu ku yidhi haa waa noolahay waxaan ku weydiinayaa maxaa sidaan qoyskii u gashay maxaadna bannaanka ugu tuurtay laakiinse Obina intuusan hadal hadlinba boolis ayaa guriga soo galay nin askari ayaana isla markiiba waxa uu ku yidhi Obina waad xiran tahay adiga iyo xaaskaada iyo weliba labadaada ilmood isagoo hadal ku sii diran ayuuna isla markiiba jeebadii dhagba ku siiyey bannaanka ayuuna u soo kaxeeyey waxaana loo sheegay in xilligaas iyaga lagu eedeeyey tuugnimo iyo weliba xoolada islaam inay dhacaan kadibna Amar ayaa bilowday inay bariso Jidi waxay ku tiri waan ku baryaan iska cafi laakiin isaga waa uu ka diiday kadibna waxaa loo kaxeeyey dhankaasi saldhigga Jirina mar kale ayuu hantidiisa dib ula wareegay sidaasoo kale Ngozi iyo weliba Danana ugu dambeyntii waxay dib ugu soo laabteen gurigoodii weynaa ee qasriga ahay warkii Jidi ayaana magaaladii idil ku faafay weliba walaalkiisa sida ula dhaqmay dadkiina halkaas waxay ka barteen cashir weyn bilooyin yar kadibna Dana iyo weliba Davidna way isguursadeen aroos weyn ayayna dhigteen sanad markay ka soo wareegatana laba caruur oo mataana ay isku dhaleen oo wiil iyo gabar ah sheekadana halkaas ay asxaabi ku soo gabagabaysaa bal haddayna weydiiyo cashir noocan ayaad ka barateen fikirkiina konti nagula wadaaga nagu inaad muuqaalkan like tar janaalkana subscribe sidaas iyo amaan Allah goodbye